fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Axmed Rasta ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo markaasina lagu wado in bandhig faneed ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho. Warbixintani waxa ay noo soo dirtay wariyaheena Kiin Cumar Makaraan oo ku sugan magaalada Muqdisho. fanaaniintan lagu soo dhaweeyay maanta magaalada Muqdisho oo ka soo degay airport Aadan Cadde Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Rasta oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed maantana yimid magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweyntooda waxa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale madaxda hay'adda CCA oo magaalada Muqdisho ku martiqaaday. fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Rasta ayaa magaalada Muqdisho markii ay soo gaareen ugu horeyn waxay booqdeen golaha murtida iyo madadaalada National Theatre iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen barbaarta gaashaamana. مسؤولينتي كقيب galay soo dhaweynta Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Rasta ayaa waxay sheegeen in si weyn ugu faraxsan yihiin in maanta fanaaniintan ay yimaadaan magaalada Muqdisho. fanaaniintan ay yihiin kuwa la hadla dadka xildhibaan Professor Maxamed Umar Dalxa, Khadiija Maxamed Diiriye iyo Maxamed Cajiib oo ah gudoomiyaha hay'adda CCA ayaa ugu horeyn fanaaniinta ku soo dhaweeyay gudaha magaalada Muqdisho imaatinkoodii maanta. محمد صلى الله عليه وسلم oo dhashay oo maalin khayr qabta oo maalin barakaysan maalin iftiinka ilaahay adduunka maanta ninkii uu wacnaa ee asaga noo soo diray ee ay xusayso ummad Soomaaliyeed inay nasiib u yeeshaan fanaaniintii Soomaaliyeed ee ka timid soo dhaweyn waxaan u maleynayaa nuurun ala nuur inay tahay marka waxaan rajaynaynaa hadal hadduu qiimo iyo qaayo leeyahay waxa dhamaysay inaan farxad ku wada qaadano magaaladeena waa dhalinyaradii ugu horeysay ee u damqaaday dalkooda ee go'aansada in ay imaadaan barnaamij aamuddo ku soo taameeno ugu magactarna toddobaadka nabadda iyo dib u dhiska dalka fanaaniintii ugu horeysay ee naga aqbalay ee ogolaaday inay waqtigooda dadaalkooda fankooda intaba ay ku soo biiraan si dalkan dib loogu dhisi lahay annagana waa ku Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Rasta oo ah fanaaniinta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin imaantigooda magaalada Muqdisho waxaana Hodan ay sheegtay in magaalada Muqdisho ay tahay halkii ay hooyadeed iyo aabaheed ay ku noolaayeen kana shaqeyn jireen waxa ina tilmaamtay in maanta aan la qiyaasi karin dareenkeeda ku aadan imaatinka magaalada Muqdisho oo aan maanta ku suganahay Muqdisho oo aan la qaadan doono waqti qiimiye qaayale waxaan halkan ka salaamayaa madaxdii cuqaashi waxgaradkii dhalinyaradii haweenkii wariyayaashii iyo fanaaniintii oo mar walba ahayd qaybtii ugu weyn ee ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin waxaan mar labaad aan horta si mahad gaar ah ugu celinayaa fanaaniintu iskuma jirto fanaaniinta waa bari oo hooyaday macaana oo aabahay ah oo waalidiintayda ah oo caawa halkan ku wada ii wada taagnaa iyagana si gooni ah oo gaar ah inuu salaamaya waxaan dhex taaganahay waa masraxii ay waa bari ka soo heestay ee fanka Soomaaliyeed uu qiimo ku lahaa waa tiyaatarkii Soomaaliyeed anigoo ah oo ka soo jeedo fanka fanaaniinta joogta qurbaha waxaan maanta ku faraxsanahay meeshii fanka uu ka asaasmay inaan taaganahay tiyaatarka inaan taaganahay maanta waxaan ku faraxsanahay anoo ka mid ah Soomaalida qurbaha joogto magaalada madaxda Soomaaliya inaan taaganahay maanta magaalada Muqdisho hadal intaan dhihi lahaa fanaaniintan maanta yimid magaalada Muqdisho Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Rasta ayaa waxa ay kamid yihiin fanaaniinta Soomaaliyeed waxaana soo casuumay hay'adda CCA iyadoo la filayo sanadka cusub in magaalada Muqdisho ay ka sameeyaan bandhig faneed kaas oo dib loogu dhisi doono lacagta ka soo baxdo dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wadooyinkeedii burbursan Kiin Cumar Makaraan Somali Cable magaalada Muqdisho waxay isku raaceen in
tiyaatar iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen barbaarta gaashaamana. mas-uuliyiintii ka qayb galay soo dhaweynta Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Reesta ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin in maanta fanaaniintan ay yimaadaan magaalada Muqdisho. Fanaaniintan ay yihiin dan imaatinka magaalada Muqdisho oo aan maanta ku suganahay Muqdisho oo aan la qaadan doono waqti qiimiye qaayale. waxaan halkan ka salaamayaa madaxdii cuqaashi waxgaradkii dhalinyaradii haweenkii wariyayaashii iyo fanaaniintii oo mar walbaba ahayd qaybtii ugu weyn ee ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaan mar labaad aan horta si mahad gaar ah ugu celinayaa fanaaniintu isku ma jirto fanaaniinta waa bari oo hooyaday macaan ah oo aabahay ah oo waalidiintayda ah oo caawa halkan ku wada ii wada taagnaa iyagana si gooni ah oo gaar ah inuu salaamayaa waxaan dhex taaganahay waa masraxii ay waabari ka soo heestay ee fanka Soomaaliyeed uu qiimo ku lahaa waa tiyaatarkii Soomaaliyeed anigoo ah fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Axmed Reesta ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo markaasina lagu wado in bandhig faneed ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho warbixintani waxa ay noo soo dirtay wariyaheena Kiin Cumar Makaraan oo ku sugan magaalada Muqdisho. Fanaaniintan lagu soo dhaweeyay maanta magaalada Muqdisho oo ka soo degay airport-ka Aadan Cadde Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Reesta oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed maantana yimid magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweyntooda waxa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale madaxda hay'adda CCA oo magaalada Muqdisho ku martiqaaday. fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Reesta ayaa magaalada Muqdisho markii ay soo gaareen ugu horeyn waxay booqdeen golaha murtida iyo madadaalada National ku wada qaadano magaaladeena waa dhalinyaradii ugu horeysay ee u damqaaday dalkooda ee go'aansada in ay imaadaan barnaamij aamuddo ku soo taameyno ugu magactarna toddobaadka nabadda iyo dib u dhiska dalka fanaaniinta ugu horeysay ee naga aqbalay ee ogolaaday inay waqtigooda dadaalkooda fankooda intaba ay ku soo biiraan si dalkan dib loogu dhisi lahay annagana waa ku Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Axmed Reesta oo ah fanaaniinta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin imaantigooda magaalada Muqdisho waxaana Hodan ay sheegtay in magaalada Muqdisho ay tahay halkii ay hooyadeed iyo aabaheed ay ku noolaayeen kana shaqeyn jireen waxa ina tilmaamtay in maanta aan la qiyaasi karin dareenkeeda ku wada hadla dadka xildhibaan Professor Maxamed Umar Dalxa Khadiija Maxamed Diiriye iyo Maxamed Cajiib oo ah gudoomiyaha hay'adda CCA ayaa ugu horeyn fanaaniinta ku soo dhaweeyay gudaha magaalada Muqdisho imaatinkoodii maanta Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo dhashay oo maalin khayr qabta oo maalin barakaysan maalin iftiinka ilaahay adduunka maanta ninkii uu wacnaa ee asaga noo soo diray ee ay xusayso ummad Soomaaliyeed inay nasiib u yeeshaan fanaaniintii Soomaaliyeed ee ka timid soo dhaweyn waxaan u maleynayaa nuurun ala nuurin ay tahay marka waxaan rajaynaynaa hadal hadduu qiimo iyo qaayo leeyahay waxa dhameysay inaan